Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka aynan hooyada uurka leh isticmaali karin, non-safe medication pregnancy. Waxaan ka qaadanaynaa daawada la yiraahdo ciprofloxacin, gebi ahaan lama sii karo, waa daawo qalajiye ah. Doxycycline ayadana sidoo kale waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin hooyada uurka leh. Furatidine ayadana waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin daawadan hooyada uurka leh. Tetracycline ama tetracycline waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin hooyada uurka leh. Diazepam sidoo kale lama sii karo hooyo uur leh. Chlorpheniramine waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin hooyada uurka leh. Naproxen sidoo kale lama sii karo hooyo uur leh daawadan. Aspirin waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin hooyada uurka leh misena aysan isticmaali karin. Ibuprofen ayadana sidoo kale lama sii karo hooyo uur leh mana isticmaali karto. Methimazole sidoo kale lama sii karo hooyo uur leh mana isticmaali karto gebi ahaan. Heparin waa nooc ka mid ah noocyada aysan qaadan karin ama aysan isticmaali karin hooyada uurka leh. Warfarin sidoo kale waa nooc ka mid ah noocyada aan la sii karin hooyada uurka leh. Clindamycin sidoo kale lama sii karo daawadan hooyo uur leh mana isticmaali karto gebi ahaan. 13kaas daawo aan kasoo sheegnay waa common cause-ka ee hooyooyinka uurka leh aysan isticmaali karin gebi ahaan, oosan dhakhtar xitaa u qori karin ama aysan banaanka xataa kasoo gadan karin sida farmashiga, mana isticmaali karto. Digniin: ha siinin 13kan daawo hooyo uur leh mana isticmaali karto. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.